maryaha hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Axmed Ibrahim Cabdi ayaa maanta tababar u soo xidhay shaqaalaha waaxda farsamada ee hamaha kaydka shidaalka Berbera. tababarkani oo socday muddo 2 bilood ah ayaa waxay ku baranayeen shaqaaluhu qaabka casriga ah ee loogu shaqeeyo farsamada gacanta. tababarkani ayaa waxa bixinayay injineer Jaamac Ali Qalafo isagu ka warbixiyay tababarkan muddada 2 bilood ee siinaya shaqaalaha iyo waliba waxyaabihii ay ka faa'iideen ee la doonayo in shaqada ay hayaan ay ku dabaqaan. shaqaalihii BOT siiba departmentka farsamada gacanta oo kala qaybsama 6 section 6daas section ayaanu muddo 2 bilood oo dhow ah section walba aanu halkiisa ugu tagnay ama noogu yimid oo aanu wax baraynay marka mahad ilaahay baa iskale mahadda labaad waxaan u gudbinayaa general managerka Mr. Ahmed Ibrahim oo diyaar u ah shaqaalihiisa inuu kor u qaado tacliintooda uu kor u qaado oo aanu idinku qolada misalan mechanicska waxaanu baray valves halka waxa lagu isticmaalaa valves waxaanu baray hydraulics waa lagu isticmaalaa waxaanu baray pumps centrifugal pumps ayaanu baray waxaanu baray qaabka wax loo qiyaaso qiyaasta iyo calaamadinta marking and measuring waxaanu baray yani sida kor loogu qaado nadaafadda iyo workshopada qaabka looga shaqeeyo ayaanu baray qolada electricana wixii electric ku saabsanaa waxaanu naqaanaa inagu wadankeena waa 2 shay uma la yaqaanaa laga dhaliyaa korontada waa solar iyo generator waxaanu baray oonu u dhignay ilaa 4 qaab oo kale oo loo dhaliyo korontada oo jira waxaa laga dhaliyaa waveska badda waxaa laga dhaliyaa dhulka heatka dhulka waxaa laga dhaliyaa dhuxul dhagaxda warshada dhugul dhagaxda waxaa laga dhaliyaa hydroelectric power Uswan Dam iyo ka Addis Ababa yani qaabkaasaan u dhignay iyo waxa laaliyo wixii electric equipment ah ayaanu iyana u dhignay qolada power house-ka how ay u shaqeeyaan sida u shaqeeyaan diesel engines iyo cooling system madaxa shaqaalaha ee hamaha kaydka shidaalka Berbera iyo qaar ka mid ah shaqaalaha oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay tababarkan ay barteen isla markaana tilmaamo ka bixiyay waxyaabihii ay barteen iyagoona sheegay inay ku dabaqi doonaan shaqada ay hayaan ka saddexaad waxaan leeyahay shaqaalaha la siiyay training waxa la idin siinayay inay meesha wixii la idin siiyay ay anfacaan oo galaan ayaa la idin siinayay oo qolo waliba wixii la baray ay ku dabaqdo yani shaqad maalmeelka ay qabanayaan laakiin hadday wixii noqdaan marartu la adri waxa inta soo marteen sida ilaa idin dhaafay oo waxba reebin hantida iyo waqtiga ku baxay labaduba khasaaray noqonayaan alla kama dhigo amiin marka idinkana waxaan ku boorinayaa wixii la idin baray ka faa'iideeyeen ka maaragtay khuseeyo meesha hadeer gacanta ku haysan waxyaabadee ayuu sheegay injineerku aan hadeer halka kan aydan ku haynin oo mesela waxyaabahan la dabka dhaliyo de badihii iyo wabiyadii iyo de sheegay badiina waa haynaa de waa haynaa laakiin de wali ma hayno itaalkeedii ma hayno laakiin intii la idin baray ama leydhka quseysay electric ama injiinada quseysay ama maintenance quseysay maxaan ku dayactirka waxa la idinka baahan yahay inaad weelaysaan ku shaqeysaan halkan Maray Axmed intii uu joogay terminalka wax badan buu ka qabtay haday noqoto dayactirka xafiisyada ama maintenance-ka iyadoo taana raaciyay dadkiina inuu aqoontoodii kor u qaado dadaal badan u geliyay
maareeya waxaan leeyahay ka codsanayaa inaanay noqon intani tii ugu dambeysay maareeye insha allah continue noo noqoto tababarku noo sii socdo ayaanu ka codsanaynaa kolley annagu aad baan kugu mahadnaqaynaa horta qaybtan inaan technicalka maadaama shaqada inta ugu badan ay technical tahay oo waxa xafiisyadu ay qabtaan bay iska yar yihiin haddana inta ugu badan waa maintenance-ka iyo dayactirka lala daba taagan yahay dadaal badanna aad geliso oo hanti badanna ay ku baxdo qaybtayadan ahaan faayir ahaan anaga qaybtayadan iyadoo runtii intii aad joogtay qaybtaa dadaal badan baad aada u gelisay oo tacab badan baa galay kharash badan baa galay rag badan oo aqoon leh baad keentay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa anagu ka wax ahaan faayir ahaan run ahaantii duruusta aan muddada 2 bilood iyo xoogayga qaadanay waa midaanu aad noo anfacaysa annaga iyo shaqaale weynaha iyo dalka dhammaanba iyo BOT hamaan taana waxa ma hadda koobaad iskale maareeyaha guud ee haamaha kaydka shidaalka Axmed Ibrahim Cabdi talabaadna maamulka saddexaadna injineerkii hawsha inoo diyaariyay inta kadib maareeyu run ahaantii shaqaalaha iyo haamaha oo qura uma dadaalee waa nin soo jeedo dalka intii uu ka gaari karo waxtarkiisa leh ugu dambeyntiina maareeyaha haamaha kaydka shidaalka berbera Axmed Ibrahim Cabdi ayaa sheegay in tababarada noocan uu shaqaalaha had iyo jeer siin doono isla markaana muddada uu xilka hayo uu ku dadaali doono sidii uu xirfadda shaqaalaha kor ugu qaadi lahaa habaykan adduunka waa weyn waxa hore ugu maray waxa weeye shaqaalaha ee wax la geliyaa qofka shaqaaleeyay magu sabixi soo kalaho isagoo niyad haya jecel meeshii soo kalaho uu imanaya laakiin taa niyad hayn oo caajisaya oo seexanaya dhibaato badan baa dhacaysa laakiin waxa ugu important waxa weeyaan qofka shaqaalaha in la nooleeyo marka hore in laga farxiyo oo mabsuud noqdo mishaar ahaan caafimaad ahaan maskax ahaan dhinac kastaba weeyla waxa kale jeeynta aan joogo kulli wax badan waan soo kordhiyo in badan waan u kordhiyo mishaarka halkan joogta intii u dambeysay liiska waan haynaa imika oo maxamed bay soo gudbiyay hadda jeer waxaan igu waajibaanaga amba aad iyo aad u tiigsanay waxa weeye in aan shaqaalaha niyadooda iyo qalbigooda iyo reexayskooda iyo reerooda ay habka wada dhigo ay mabsuud si ay meeshii hore u socoto marka maanta aqoontan aan baranay runtii waa horumar waa talaabo maanta waxa u geysanaysa nimanka shaadan haysta waxay dhaamaan kuwa shaadan haysan way chance uu maanta helay oo sare u kaco aqoonta hadda sii soconaysa waxa lagu kala baray maxaa taqaanaa weeyaan ayaa taqaanaa maaha qofka waxa ku soconayaa maxaa taqaanaa ayaa taqaanaa ma kama shaqeynaysa meeshan marka ilaahay xarajiinaya ilaahay idinkii aqoonta barteen ilaahay ugu guuleysiyo aad hore u socotaan ayada jooji waxbarasho wax dhabaada ma imka ragga waxbarashada aqoonta marka la ilaa soo maarag dib wuxuu ku daraa aqoonta wax socdo guligeeda waxyaabo badan hore laga tagay cilmi cusub ay baneen baa laga sameeyay brid waxa laga yaabaa 10 sano ka bacd inaan leeyno baahanba oo robot shaqeeyo wax kala shaqeeyaan oo ninkii shaqada qabanayay mishiinka uu fadhiisto waxaas ka maamulo wax kasta aan injiinkii tagin aan maintenance-kii sameyn aan waxba sameyn baarka computer-ka hor fadhido taasina way dhici doontaa insha Allah waqti waa horumar la gaari doono insha Allah marka horta waxaan aad ugu mahadnaqayaa engineer Jaamac oo runtii hawl aad iyo aad wada qabtay aad u dadaalay geliyay muxuu ahaa yani hawl aad yani geliyay yani kartiisii aqoontiisii wixii soo bandhigay oo waxba naga hagran engineer Jaamac ma santahay sharaf bay noo tahay qiimo ay noo tahay waxa fiican maanta hadii way naga absaantay laakiin hadii way ka yeelaa Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera